Abraha wuxuu ahaa nin xabashiya oo badhasaab ka ahaa waddanka Yaman. Wuxuu xaasidnimo weyn u hayay Carabta iyo weliba Kacbada sharafta leh. Kadibna wuxuu isku dayay inuu dadka ka leexiyo magaalada Maka iyo Kacbada sharafta leh. Sidaa darteed wuxuu dhisay kaniisad weyn oo aan horey loo arag. Waanu qurxiyay waxaanu u bixiyay oo ku magacaabay Qulays. Sidoo kale Abraha wuxuu u diray warfidiyayaal boqorkii xabashida, kuwaas oo ugu bishaareeyay inuu dhisay kaniisad aan horey loo arkin, si ay dadku ugu soo xajaan. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta oo ku saabsan Abraha iyo siduu iskugu dayay inuu dumiyo Kacbada sharafta leh. Magacaygu waa Maxamed Cali. Waxaa ogeysiis loo diray magaalooyinkii uu ka talinayay si loo siyaarto kaniisadda. Carabtii ayaa ka cadhootay arrintaasi una fahantay in lagu ciyaarayo muqadasaadkooda. Waxaa la sheegay in nin Carbeed ay qaaday caadifadii kadibna uu galay kaniisaddii uuna ku dhex xaajooday meeshii loogu talagalay in la siyaarto amaba inay dadku siyaartaan. Kadib arrintaasi markii ay gaadhay Abraha ayuu go'aansaday inuu burburiyo Kacbada. Abraha iyo ciidan hubeysan oo uu wato ayaa soo baxay si loo dumiyo Kacbada sharafta leh. Carabtii ayaa maqashay inuu Abraha ku socdo Maka. Kadibna waxaa ka horyimi mid ka mid ah boqorradii reer Yaman oo la dhaho Nafar. Hase ahaatee waa laga xoog batay waana la qafaashay boqorkii. Abraha iyo ciidankiisii waxa ay gaadheen dhulka reer Kacbada, waxaana ka horyimid oo la dagaalamay reer Kacbada oo uu hogaaminayay nin la dhaho Nufayl ibnu Xabiib, balse isagana waa laga awood batay waana la xidhay. Abraha socodkiisii isagoo sii wata wuxuu gaadhay reer Thaqiif oo deganaa magaalada Daa'if. Waxaa reer Thaqiif gashay cabsi, kadibna way isdhiibeen ayagoo muujinaya cudurdaaro. Waxayna Abraha u sheegeen in sanamka ay haystaan aanu ahayn Kacbadii. Sidoo kale reer Thaqiif waxay ku dareen Abraha nin Abraha tusaya wadada loo maro magaalada Maka. Waxaa ninkaasi la odhan jiray Aburuqaal. Abraha iyo ciidankiisii markay u dhowaadeen magaalada Maka ayuu geeriyooday Aburuqaal. Waagii dambe Carabtu dhagaxay la dhici jireen xabaashi Aburuqaal, maadaama uu ahaa nin ka tusay Abraha dariiqa loo maro magaalada Maka ee barakaysan. Ciidankii waxay degeen meel la dhaho Maqmaz. Abraha wuxuu magaalada Maka u diray nin la dhaho Al-Awsat si loo sahamiyo magaalada. Markuu magaaladii galay ayuu dhacay 200 oo geela oo uu lahaa sayidkii reer Qureysheed ee ahaa Cabdulmutalib. Geelii waxaa loo keenay Abraha, kadibna wuxuu diray nin kale oo la dhaho Xanaada. Wuxuu galay magaaladii wuxuuna la kulmay madax dhaqameedka magaalada isagoo u sheegay inaysan dagaal amaba in dhiig daato aanay u imaan, ee keliya u yimaadeen inay dumiyaan Kacbada. Cabdulmutalib wuxuu u tegay Abraha, isna wuu sharfay. Abraha kursiga uu ku fadhiyay ayuu ka kacay si uu u sharfo sayidka reer Qureysheed ee ahaa Cabdulmutalib. Abraha ayaa weydiiyay wuxuu doonayo Cabdulmutalib, wuxuuna ku jawaabay inuu rabo oo uu doonayo xoolihii laga soo dhacay. Abraha ayaa la yaabay ninkan geela doonaya ee aan ka hadlayn Kacbada uu duminayo. Cabdulmutalib wuxuu yidhi, anigu waxaan leeyahay geelayga, Kacbaduna Rabbi ilaaliya ayay leedahay. Cabdulmutalib geelii ayaa loo celiyay, kadibna qoomkiisii ayuu ku noqday una sheegay inay ka baxaan magaalada. Dadkii waxay u ordeen dhanka buurta. Cabdulmutalib wuxuu ku dhigay daayada Kacbada isagoo baryaya Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Abraha iyo ciidankiisii waxay u ruqaansadeen dhanka Kacbada. Ciidanka Abraha waxay wateen maroodi loogu talagalay inay ku dumiyaan Kacbada sharafta leh. Kacbada sharafta leh waxaa dhisay Nebi Ibraahim iyo wiilkiisa Nebi Ismaaciil, waana beedkii ugu horreeyay ee loo dhisay dadka si ay Ilaahay keligii ugu caabudaan. Abraha iyo ciidankiisii oo kibiryo isla weyni ka muuqato waxaa ka gooneed inay dumiyaan Kacbada sharafta leh. Nufayl oo ku jiray gacanta ciidanka Abraha ayaa maroodigii la hadlay kuna yidhi, dib u noqo maroodiyow. Kadibna Nufayl uu baxsaday wuxuuna galay buuraha. Abraha iyo ciidankiisii waxaa la yaab ku noqotay in maroodigii diiday inuu u kaco dhanka Kacbada. Hadday isku dayeen inay u kaxeeyaan dhanka Shaam, Yaman ama dhanka bariga, maroodigu dhaqaaqaya, hase ahaatee dhanka Kacbada uu diiday inuu dhaqaaqo. Muddo kadib ayaa cirka isku bedelay mugdi, mise waa kooxo shimbiro ah afka ku sita dhagaxyo danabaysan kuna tuuraya ciidankii Abraha korkooda. Ciidankii waxay noqdeen wax halaagsamay oo shimbirihii dhagxaanta wata ay heleen, iyo kuwa nafla caaradkii firdhaday oo yaacay.
ninkii Abraha waxa ku dhacday dhagaxaantii shimbiraha waxaana kala daatay jidhkiisii sidaas ayuuna ku dhintay. Ilaaha weyn ayaa halaagay Abraha iyo ciidankiisii waxaanu difaacay beedkiisii. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qisadooda kaga warramay suuratu alfiil. sanadkaas Ilaahay halaagay asxaabtii maroodiga waxaa loo bixiyay sanadkii maroodiga amaba caamul fiil waxaana dhashay isla sanadkaas nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. carabtii Quraysheed markii Ilaahay badbaadiyay beedkiisii xaramka waxa uu sii kordhay sharaf iyo karaamo iyo weynin la weyninayo dadka degan magaalada Maka iyo cidda xukuntaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول